sida dadka muuqato iskuulka waxbarashada ka socon jiray ardayda iskuulka way imaan jireen haddeerna waa arkaysaa iskuulkii wuu xiran yahay waxbarashada kama socoto sababtoo ah waxaan qaadanay talooyinkii ay soo jeediyeen wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada oo ah in laga taxadaro cudurka COVID-19 anagoo la yaaban baa waxaa timid online in lagu dhigo la yiraahdo ma taqaana war waxa la helayaa ardayda fasalada waxa lagu siinayaa maaragtay inay gurigooda wax ku bartaan waxbarashada online ku qaataan qofkii kaligiis isagoo si aanu ilmihii isugu tagin fasal isugu tagin waxay noo noqotay wax aad iyo aad aan ugu faraxnay aan u soo dhaweynay waalidiintii iyo ilmihii intuba ay ka wada qayb qaateen يعني waxbarashada hadda casri baa la gaaray waxbarashada waxa loo ku jiri jiray online casharada online markii lagu soo siiyay casharada waa soo dejisan jirnay buugii qalinkayga soo qaadan jiray waan daaran jiray waan qoran jiray waan meenaysan jiray xagga saas u diyaarsan jiray laakiin ani gaar ahaanteeda markaan kooytoon ka kaco maadadii intii ay qoyan tahay baan fiirinaya akhrinayay sababta maadada hadii ay qalasho fahankii wixii waa ku dhaafayaa hadda tuu wuxuu ku adkaanaysaa casharada inta ku jira waxaan ka helay oo si aad ii soo jiiday casharada in aad ku ceshatid ilaa iyo inta aad uga baahan tahay oo kale waan haystaa dhammaan agabkii aan kala socon lahaa waxbarashada haday tahay mobilkii haday tahay qalinkii haday tahay buugaagtii laakiin waxaa jira dhalinyar aniga ila mid oo kale oo aan haysan ama awoodin qalabka ay waxbarashada kula socdaan waxaan markaa oran lahaa in dadka aan haysan in laga caawiyo waxaan rajaynayaa casharada online-ka inay naga caawiyaan inaan imtixaanka ku baasno sababtoo waxa waayo casharadii waxay waqti ayaan haysanaa fursad inaan ku soo celceliyo markasta imtixaankii waan galnay wuxuu noo bilaabay 7 bishii Abriil 2020 waxaan galnay 7 maado ma sha Allah uu noo fududay imtixaanku noo fududaado waxa keenay inaan casharadeena online ku qaadano waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada ee Puntland waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa hay'adda Save Children oo door xal ka qaadatay in ay casharada ardayda iskuulada dhigta ay ugu tagaan guryahooda